gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka Ucud Cabdinaasir Buuni oo maanta qaar ka mid ah warfidiyeenada kula hadlayay hotel Sow ee magaalada Boorama ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda colaadeed ee ka taagan deegaanka Tukaraq isagoo baaqyo kala duwan diray ayaa waxa uu yiri waxa kale oo hambalyo u diraynaa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan khaasatan kuwa jiida hore ee jooga ee bariga Soomaaliland in wali waxa weeyaan gaadhin xuduudihii Soomaaliland waxaanu cambaaraynayna oo waxa weey cambaarayn dusha uga tuurayna gardarrada dawladda xamar ay wado madaxweynaha farmaajo ka yahay maranka ka dhigtay maamul goboleedka Majeerteeniya gardarrada maalin walba ku soo qaadaya ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland falka ay shalay sameeyeen wuxuu ahaa fal la mid ah maalmihii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland marka uu doorasho galayo ama go'aano masiiriyo qaranka Soomaaliland u gaar u gaadhayo ama munaasabadaha qaranka ee sidoo kale sidii shalay 18 May u dabaaldegaya sidii cadowgu ugu soo qaadi jiray awalba duulaan ayay tanad u shalay la mid ahayd marka wax nagu cusub ma ahayn ciidamada soo majeestayaasha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiida hore ku sugan darbaaxada ay gaarsiiyeen waanu ku tahniyadeynaynaa halka ka sii wadaanu leenahay waanu ku garab taaganahay waxaanu hubnaa in qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xuduudihiisu dhameystirmi doonaan cid aanu ku gardaroonaynaa aan jirin cid ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku gardaroonayaan jirin xisbiga u ciidadaanu waxaanu beesha caalamka ugu baaqaynaa in gardarrada farmaajo wado وهدنا همبلية صاد دريا هدنا waxa weeyaan baaq nabadeed uu soo dirayo isma qabato adduunyada waxa ka qabato ciidamadayadu waxay joogan dhulkoogii oo inay waliba wada joogin waxa weeyaan maalin walba la soo gardareysanayo beesha caalamka waxaanu ka codsanaynaa xisbi ahaan in arrinta degdeg u soo farageliyaan talaabo cad ka qaadaan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waanu dhiirinaynaa waxaan ku ognahay xil gudasho iyo mas'uuliyad iyagoo ognahay xisbi ahaan duruufaha kala duwan ee ay ku sugan yihiin taas waxaan ku dhaafayaa kelmadeydii dagaalka Tukaraq sidoo kale gudoomiye Cabdinaasir Buuni oo sii wata hadalkiisa ayaa waxa uu ugu hambalyeeyay bulshada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan bisha barakaysan ee Ramadaan shacabka reer Soomaaliland ku hambalyeynayna dhalashada bisha barakaysan ee Ramadaan oo caawa hadii Ilaahay dhaado kow ah in caafimaad ku gaaraan cibaado suuban ku gaaraan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala bisha Ramadaan uu ka aqbalo in kuwa nabad ay shacbiga reer Soomaaliland meel kasta joogaan ay ku soomaan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u rajaynaynaa oo ku tahniyadeynaynaa bisha barakaysan ee Ramadaan inay ay noqdaan kuwa waxa weeyaan cibaadeysta Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka aqbalo shacbiga reer Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa xisbiga u ciidadaanahay inay isku naxariistaan dadka danyarta ah waxa weey la gargaaro dadka masaakiinta ah la afursiyo waxa weeyaan shacbiga reer Soomaaliland ay naxariis bisha Ramadaan ay isku muujiyaan taana xisbi ahaan waanu dhiirigelinaynaa bisha barakaysan waanu ku hambalyeynaa arinta kale iyadana maanta aan jecelahay inaan ka hadlo waxa weey waxaad ogtihiin maalmo dhaweeyta in shidaal wasakhaysan oo dalka yimiday shidaalkii wasakhaysnaa dawladdu ay ka xil gudatay shirkadii keentay la sheegay la ganaaxay shidaalkaasi wasakhaysnaa sidii haddana haamihii looga dhameyn lahaa aanay wali talaabadeedii la qaadin taasina ay nagu keentay in dalkii shidaal yaraan ay ka dhacdo shidaalkii nadiifta ahaa meel lagu shuban la waayo taasina waxay keenaysaa arrin mas'uuliyad darro ah waa in xukuumadda iyo cidda arrintaasi u abuuran u xil saaran waa in degdeg ay arrintaasi wax uga qabtaan way dalkeenna waxa uu u baahanahay inuu socdo inuu ganacsigiisu hana qaado in shacbigeenu ay noolaadaan baynu doonaynaa arrinta kale Soomaaliland khayr iyo baraadaan u rajaynaynaa waxaan leenahay kullu caam wa antum bikhayr Ramadaan wanaagsan عدة وحوي عد كستو ما دام إنه مسلمين نهاي بشهر رمضان هلا فايدة يستو دتكون هايس عفيان دنا خير كهلوج يستو بشهر أنكو عمرنا وحيله هكو عمر يجي وعباده يا قرآن أخرس يا قيام الليل يا صون آدي بدو ما هتسنتهين وربعين تعداتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشعيب محمد كان شعيب بيجي استيفيق عالمي بولشو مقالة بورما.